asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha meel walba aad joogtiin soo dhowaada waa walaalkiin shakuur cabdallah iyo video cusub videogan wuxuu la socdaa fideoyadii saddexda ahayd ee ku saabsaneyd dagsiga ee dhowaan aniga iyo walaashay cadday yuusuf aan soo diyaarinay oo janalkan aan soo gelinay mahadcelin ballaaran waxaan u mahadcelinayaa asxaabteyda ku xiran janalkani tiim canjeelo khaasatan oo inaba aan yani waxaa waaye saddexda video ugu viewga badnaa oo noqdeen saddexdan video taasna waxay noqonaysaa dhiirigelin ugu dhiirigelinaysaan inaan maxaa la dhahaa videoyo kale soo dhigno channelka iyo wixii tip ah iyo maxaa la dhahaa talo ah aan idinla wadaago insha allah videoga koowaad wuxuu marayaa waa 13 beri gudaheeda 12,000 qof baa maxaa la dhahaa daawatay gabadhii cadday ahayd ayadana videogeedii 1,000 iyo maxaa la dhahaa 100 uu marayaa waa 10 beri videogii saddexaadna wuxuu marayaa 769 asagana waxa waaye waa 7 beri haddaa gudaha u galo asxaabtii fiirsatay iyo feedbacka ay ka dhiibeen asxaabtii fiirsatay iyo feedbacka ay ka dhiibeen aad u fiican yahay 93 like 93 like halo bakhiilka gacanta baasha alaabta gacanta bakhiila kutiin wax yar bakhiila kutiin qoraalo qurux badan oo dhammaantiin nigu mahad celinayo one love asxaabta waa mahadsantihiin laakiin meeshaan badiya meeshaan lacag ma nagu fadhida badiya tag saara hala saara laaga hala youtube-ka hadda hor shakuur maxaa waaye wuxuu kusoo noqday si xawliga kusoo noqday marka alaabtan baashaan cirka u dira okay midda kale cadday gabadheedii cadday videogeeda legend for kadib legend boodkeeniyaa u laabanaynaa cadday videogeyga boodka waa muhiim fiirso videoga su-aalo badan oo laleeyahay boodka aaway videoga cadday marka ku dhufatid walaalo hoos qoraalkan qor fiiri qoraalka hoos aan ku qoray linkiga intuu saaraya waa kana linkigan taabo wuxuu ku geenaya telegramka dhibka joojiyano waxa markii videoga kor iyo hoos waa loo baaraa waxyaalaha ku qoran commentiga waxaa la fiiriyaa hataa meesha ku cusubtahay baara commentiga kusoo qoraa boodka intaa ka helnaa abaaba ma hurdaa sariirta maa wax ka fiirsanaysaa kac maxaa la dhahaa ii sheeg maktabad yar samayso kombyuutar dhigo ma fahamte baaritaankaaga gal taasna waa iga kaftan laaga hala badiyo okay inta meeshaan dadka ku xirmay subscribe ka sameeyey ayakana waxa waaye soo kordhayaan 200 maxaa la dhahaa iyo 70 qof maxaa la dhahaa 14 beri ee haddartan lasoo dhaafay ee kusoo xirmay channelka waa fiicantihiin nice thank you guys inkastoo aan jeclaan lahaa baasha xoog inay loo qaado oo maxaa la dhahaa ilaa liitusiyo shakuur soo noqo si fiican u soo noqo annagaa cirka ku geenayna markaad dhahdeen markaas waxaan dareemayaa bahalkan inaa u baahan tihiin janalkan inuu mar walba jiro marka bahalkan cirka ha loo diro 5 ha la geeyo 5,000 ha la geeyo 6,000 ha la geeyo 7,000 ha la geeyo ya maxaa waaye dhowr sano ku jirnaa meeshaan 5,000 xitaa ma gaari laanaani cilmiga meesha ku jirin meel kale kama helaysiin haye maxaa kale hadda maanta waxaan ii wadaa fiiriya asxaabe sababtii aniga laba shaqaana hayaa videogan waxaa waaye haddaan kusoo noqdo inaan ii sameeyo qoraalada badanaa walaahi asxaabta waa jecla inaan qof walba jawaabo laakiin twitterka ya marmare waxaa jirta aniga jaanis leeyahay twitterka soo galo twitterka spaceka habeenkii m3da qabto marka twitterkayga shakuur cabdallah la dhahaa twitterkaas ugu follow garee markaan soo galo ay arkaysaa anaa korku soo saarayo waxa su-aashaa rabtid gruubyadaa rabtid in lagu daro maxaa la dhahaa ii sheeg haddii wax ay rabtid in lagu fahamsiiyo waxaasoo dhan waa lagu caawinaya laakiin qoraal animaato dhan uma jawaabi kari boqolaal qof walaalayaal iraale ahaada
marka twitterkaan noo balamay habeen walba twitterkaan joognaa mtrade twitterkiisa aan joogaa habeen walba meeshaas su-aalaha aniga xataa su-aasha hadday igu adag tahay sababta marku dhahayo aniga waxaan ahay aabbaha iyo hooyada cryptocurrency ina sidiina camala wax u baranaya waxaa hadda idinka idin diyaarinaya wax kasii baranaya marka aan isla soconnay insha allah waqtiga maraba inuu badnaado si toose waxaan u gelayaa maanta barnaamijkan iisoo diyaariyey maanta barnaamijkan iisoo diyaariyey waxa waaye barnaamij aad u qurux badan waaye laakiin waxaan rabaa laayga inaa si daacadda ah qurux badan inaa laayga u taabatiin meesha waxaa u jeedaa faarax faarax waa i ceebiyey faaraxan maxaa waa cimaamadan cigaalkan faarax sacuudi madow waaye iyo xaliimo quruxleeyo xijaabsan oo wada maxaa la dhaha ii sheeg wada kombyuutar gadaasheed ka dambeyso yaa laandheereynayso labaduba waa labo maxaa la dhahaa si professional ah maxaa la dhahaa trade u sameynaya saa u jeediin waxaasoo dhan waxay ku jiraan trade shaashadaa la fiirinaya warqadaa hortaalo xaliimo yaa qalinka gacanta ku haystaa marka see u noqonaa xaliimadan iyo faaraxan camal si qof professional ah saan u trade gareyno waxaan isku dayaya maanta inaan iisoo bandhigo aniga professional ani miihi aniga mani dhahay aniga professional ahay sida faaraxan camal aan sameynaya mise xaliimadan laakiin waa isku dayayaa inaan dabeecaddeeda bedelo aan waxaan ka dhigto wax professional ah ma fahamte ma aha coin telegramka lagu soo tuuray maxaa la dhahaa ii sheeg telefoonkai kusoo dhacay isla markiina ku boodo no bahasha inaad diyaar u tahay waa diyaar maskaxiyan diyaar maxaa la dhahaa ii sheeg toolskaaga inay ku diyaar yihiin wax walbo dan markaas waxa waaye tradeka inaad markaa aad ku dhiiratid aa gelisid marka how to be a professional how to be like these guys see u noqonaynaa labadan qof camal ama ka fiican see u noqonaynaa marka qaabkaasaa raba maanta inaan idinla wadaago dadka professionalka oo tradeka ah waqtiyay leeyihiin ay trade ku sameeyaan not habeen iyo maalin saacad walba coin la bursanayo no time ay leeyihiin marka adiga timekaaga ogow win straight win in maxaa la dhahaa ii sheeg hurdo win maxaa la dhahaa ii sheeg baashaal goormaha maxaa la dhahaa la aadaa shaleemada tiyaatarka waxaasoo dhan inay maxaa la dhahaa ii sheeg plankaas ay ku tagsan tahay time zone majeneska la taar maxaa la dhahaa jiin markay soo kacaan xamar markay u tahay saddexdii ilaa shantii maxaa la dhahaa fajirnimo markaasaa jeeneyska ay kala kacsan yihiin suuqa jeenaa la furaa ay subaxay u tahay laakiin soomaaliya yurubta waa laga hurdaa markaasaa bejiin laakiin qaar yurubta jooga xataa way soo jeedaan kuwa soomaaliya joogana ma seexdan way soo jeedaan laakiin markaas inaad adiga ogaatid bejiin maxaa la dhahaa isheg china maa la tarid garaynaysaa dadka china joogo maa taridkooda qaadanaysaa london waqti fiican waaye london subaxii soomaaliya waxay u tahay adi 7 ilaa 12kii duhurnimo intii la gaarin london suuqiisa aad u kala kacsan yahay oo suuqaasi waxa waaye dadkii chineskii oo ay markaa suuqooda la xiraayo iyo suuqii waxaa isku imaanaya london markaa labadaas suuqa isku soo furmaya markaas waxa waaye meeshaasna waxa waaye volume fiican jiro oo lagu trade garaya new york soomaali markay u tahay 4 ilaa 8 habeenimo waqtigaas volume badanaa soo galo marka adigu inay ku waqtiga inaa og tahay goormaad fadhiisataa oo trade samaysataa muhiimaddu waxa waaye adiga inaa kala og tahay tradeeka waqtigee kugu fiican inaad trade samaysaa ma subaxii alasay mise subaxii waqtiga 7 markay tahay ama galabihii marka new york la furayo taa waxa waaye in ay
plankaasi ku leedahay. Plan haddaad samaysatid oo plankaa ku socotid, jahwareer ma imaanayo, ma fahamtay? Iyo hurdo la'aan ma kugu dhacayso. Maxaa xiga? Waxaa xiga timekii waan isla fahanay. Maxaa la dhahaa China haddaa la trade garaynayso waa okay. London subaxii haddaa la trade garaynayso waa okay. New York haddaa la trade garaynaysana waa okay. Time adiga muhiimadda waxa waa muhiimadda inaad time leedahay aad trade ku samaysid. Not from habeenkii eh, markay China ay soo kacaan ilaa New York maantoo dhan coin aad soo buusanaysid. Maya markaas waxa waaye khasaarada badnaanayso oo adiga schedule kuma socotid. Haye maxaa kale? Inaad leedahay trading plan waxa la yiraahdo. Trading plan aad plan u samaysatid markaad trade rabtid inaad samaysatid. Dhowrkan kelmo waxaan ka soo qaaday Google maskaxdayda kama keenin. Haddaan ku dhaho maskaxdayda ka keenay beenaan ii sheegaya. Marka road map inaad leedahay road map oo aad road mapkaasi ku hagayo. Maxaa ka mid ah waxyaalaha ku hagi karo road mapka aad samaynaysid? Road mapka aad samaynaysid waxa inta ku qoran af Soomaali ahaan haddaan kuugu sheego. Plan inaad leedahay, plankaasna inuu warqad ku qoran yahay. Warqad inuu ku qoran yahay, aana warqadaasina waxna laga bedelaynin. Goorma bedelaysaa? Haddii plankaas shaqayn waayo. Plankaas hadduu shaqayn waayo, markaasaa bedelaysaa. Laakiin planka hadduu kuu shaqaynayo, warqada kugu qoran tahay, mar walba markaad computerkaaga, laptopkaaga, telefoonkaaga waxaad trade ku samaysid, waa in before that aad samaynaysid plan inaad samaysatid. See waqtiga. Planka waxaa ka mid ah sida waqtiga haddartan aan sheegay. Timeka ka mid ah goormaad trade garaynaysaa. Soomaan? Marka plan inaad leedahay oo qoran. Eh, eh, plan qoran oo maxaa la dhahaa ii sheeg la flow gareeyo aan la bedelin unless it found not work or the trader found a way to improve it. Waa sida hadda tan ii sheegay. Haddii kii hore plankii hore uu shaqayn waayo waa bedeli kartaa. Haddii aad wax ku kordhisana improve oo ku samaysadna ayada xataa waa bedeli kartaa. Maxaa kale balaanada ka mid ah? Balaan waxaa ka mid ah goormaad galaysaa entrygaaga goormuu yahay goormuu waaye entrygaaga goormuu waaye maxaa la dhahaa exit ma leedahay aad ka baxdid tradekan waxaas ma leedahay riskigaaga mataqaana oo management ma ku samayn kartaa positionka aad ku galaysid tradeka makuu qoran yahay maalin walbo positionkaas ma isticmaashaa mise maanta waxaad isticmaashay one soul coinaa lagu sheegay oo ummadda dhan maxaa la dhahaa buufis magaciisii hadalhayn badan leeyahay markaas waxaa ku gelaysaa shan sool maya saas ma soconaysa waxa inay kugu qoran yihin waaye yani waxa ii qoran trade walba aan sameeyo tusaale ahaan eber dhibic 20 eber dhibic 17 tradekaas waa galay haddaan ku guuleysto tradeka labaad waan sii kordhinayaa waxaan ka dhigayaa eber dhibic 30 koogii waxaan ku galay 20 midkii labaadna waxaan ku galay 30 ma fahamteen waa markaan ka hadlayo soul markaan ka hadlayo tradekii waa khasaartay markii koowaad haddana markii labaadaa khasaartay markii waa bes waaye maalintaas maalintaada ma ahan inaad joojisid waaye inay kuu qoran tahay waxaas inay kuu qoran yihin waxaas dhan fahamtay marka laba mar aad gashay ugu badnaan 3 mar aad gashay 3dii mar waa ku khasaartay 3 mar ma ugu fiicnaba laba mar haddaa gashay oo aragtay labadii marba inaad ku khasaartay stop that day trade inaad samaysid stop ma fahamtay laakiin halaad ku gashay oo positionkii kuu qornaa aad ku gashay waxaad samayn kartaa positionka labaad haloo waa badin kartaa because waxaa haysataa profit aad suuqa ka keentay maogtahay profitkaasa waxaad ku dari kartaa positionkii aad ugu tala gashay oo waa kordhin kartaa tan waxa waaye plan iyo road map aad samaynaysid
oo ku talagelaysa oo warqad kugu qoran tahay oo ABCD taasna aad ka dhaqaaqeen roadmap inaad leedahay. Timekii waa soo aragnay, plankii waa soo aragnay, maxaa kalaan soo rabnaa chart analyze. Chartiga badanaa dadka waxay dhahaan degsiga kama shaqeeyo chart analyze, laakiin saa u fiirsaday isbuucyada hadda ugu dambeeyay waa dadka way i fiiriyaan oo way isticmaalaan chartiga because see ku garatay waxaa ku gartay mar walba waxaa la fiirinaya all time high. Oh, all time highguu jebiyey. Oh, supportiguu ka magaciisa ka hoos maray. Waxaasoo dhan waxay caddaynaysaa in maxaa la dhahaa ii sheeg chartiga uu muhiim yahay, laakiin muhiimadiisu tusaale ahaan markii la joogo kooniyada waaweyn muhiimadiisu wuxuu noqonayaa 30-40%, laakiin meesha waxaa laga yaabaa inuu noqdo 10-15%. laakiin intaas naftigeeda waxa waaye waxay kuu keenaysaa in aad adiga aad fahamsan tahay waxaad samaynaysid. Kuwan iska cararayo haddaad geshid oo adiga ogeyn chartigan wuxuu yahay suu u dhaqaaqay iyo magaciisa adigoo fahamsaneen marka beerta ku galaysaa. Marka chart analyze maxaad ku analyze garaynaysaa time framekee adiga joogtaa. A day maad joogtaa, 4 hours maad joogtaa, 15 minute maad joogtaa, 5 minute maad joogtaa, 1 minute maad joogtaa. Badanaa markii la joogo degsiga wuxuu ku kala duwan yahay markii exchange-ga la joogo kooniyada waaweyn. Kooniyada waaweyn badanaa entry-ga waxaa laga raadiyaa 15 minute, laakiin meeshan badanaa waxaa la focus garayaa 1 minute iyo 5 minute, labadaasaa la focus garayaa. Daily haddaad aragtid waa halkan dal oo saas u dheer aad u malaysid geedkii maxaa la dhahaa mooska oo Soomaaliya laga beeri jiray. Laakiin maxaa la dhahaa ii sheeg markaa aadid hoos 1 minute 5 minute markaa fiirisid waxaad arkaysaa chartigii inuu charti qurux badan yahay. aaday down aaday up aaday down aaday jebinayo abkiisii hore ama jebinayo hoos u soo dhaadhacayo jebinayo downkiisii supportigiisii hore. Okay, waa isla aragnay soo maaha. Time frameka price action buttons price action waa chartiga maxaa la dhahaa kandalada waxay samaynayaan nashqaday samaysanayaan. Marka nashqadaas badanaa nashqado waxaa jiro oo dadka traderada ay fahamsan yihiin nashqadan saan iyo saan waaye nashqadan saan ay u dhigmataa because dadkan dhan ummadan dhan Liime iyo Faarax oo haddayna tusay way u jeedaan ayaga xataa way fiirinayaan maxaa la dhahaa nashqaduhu sameynayo maxaa la dhahaa chartiga. Marka nashqadahaas qaar waxa waaye muddo markaad ku jirtid oo maxaa la dhahaa chartiga aad baratid waxaad fahmaysaa waxaan inay nashqado leeyihiin. Nashqad walbana ay u dhigmato maxaa la dhahaa ay ay u dhigmato maxaa la dhahaa position oo lagu galo ama sell ama buy. Ma fahamteen? Support and resistance labadan waa labada ugu muhiimsan ee dhanka iyo degsiga markaad joogtid oo trade ka samaynaysid. Labadan support iyo resistance muhiim waaye inaad mar walbo aad ogtahay where's the support and where resistance intuu yahay inaad ogtahay waaye. Ma fahamtay? Taasna waxaad ku arkaysaa markaa 1 minute iyo 5 minute markaad joogtid waad arkaysaa highgii iyo lowgii iyo maxaa la dhahaa kuwa dhexda xataa waxay leeyihiin supportiyo dhexda marka highgii ugu hooseey iyo maya lowgii ugu hooseey iyo highgii ugu koreeyey markaad labadaas isku fiirisid dhexdooda waxaa ku jiro still waxaa ku jiro maxaa la dhahaa ii sheeg supportiyo iyo resistentiyo aan maxaa la dhahaa dhexda xataa ay ka soo noqnoqdaan. Taasna waxaa waa isha in lagu firi. Trend line price actionka iyo trend lineka waa isku mid. Taasna waxa waaye sawirkan hadda niga tusaya. Trendigu waa xagee ma kor baa trendigu u socdaa ma hoos buu usoo dhacdhacayaa mase waxa waaye wuxuu ku jiraa sideways oo maxaa la dhahaa wax si tartiib tartiib oo hal line ku socdo. Taasna waxaa isla arkayna sawirada haddatan iisoo diyaariyay aan idinka tusaya waqtigana waa igu qabtay raali ahaada. Trend line
trend line markuu kor u socdo waxaa la yidhaahdaa uptrade. Markuu saan u socdo oo labadan line supportigan waa kana support, kana waa resistance. Markuu ku dhex jiro oo channelkan camal markuu ku jiro caanadan ama channelkan sida wax u fahamsan tahay waxaa la yidhaahdaa sideways trend. Kana waxa waaye down trade. Down trade waa markuu hoos u socdo. Goormuu isbedelayaa down trade? Leenkii aad samaysay wuu taabtay uu ka soo noqday, mar kale uu taabtay uu ka soo noqday, uu dhawaaday uu ka soo noqday, mar kale uu taabtay uu ka soo noqday, kabacdi wuu jabsaday. Markuu jabsado leenkan nashqadan waa isbedelaysaa. Wuu jabsaday, wuu soo laabtay, hadda waxay noqonaysaa meeshii hore or ahayd resistant ay ahayd waxay noqonaysaa support. Badanaa meesha supportiga waa meesha levelka uu ka dhaqaaqo chartiga uu ka dhaqaaqo. Marka tanna waa uptrade-kii kor u socdaa, goormuu hoos u soo noqonayaa? Leenkii uu ku socday aa u jeedaa baalkan leen uu ku socdaa, leenaa u qabatay, leenuu ku socdaa. Leenkii wuu dhaqaaqay, leenkii ku soo noqday, wuu dhaqaaqay, leenkii u soo dhawaaday, haddana waa dhaqaaqay, leenkii u soo dhawaaday, kor u dhaqaaqay, haddana uu soo jabsaday. Leenkii soo jabsaday. Leenka hadduu soo jabsado oo haddana mar kale ku soo noqdo taabto leenkii naftigiisa ahaa, macnaheedu waxa waaye bahalkani ummadda dhan oo tradekaas ku jira coinkan waxay u arkayaan bahalkan in la selgareynayo. Saas darteeda waa looga baxaa. Kanna markuu sideways yahay labadan channel midkan hoos waa supportigi, kan korkan waa resistantigii. Leenkanuu ku socdaa. Leenka markuu ku socdo hadduu soo jabsado hoos u soo jabsado waan kuu sheegay uu taabto hoos aado waa sell. Hadduu ka dhex baxo uu soo taabto kii kore uu mar kale soo taabto macnaatu waa buy. Kan waa buy, kan waa sell. Waa trend line. Trend line. Nashqadaha aan haddaa inii sheegay waa kuwanaa. Waxaad ka helaysaa Google-ka. Nashqadahan waa nashqado kuu tilmaamayso goormuu maxaa la dhahaa isku bedelayaa price actionka goormuu isku bedelayaa inuu bearish noqdo ama inuu bullish yahayo buy lagu wado. labada nashqadood oo aadka u jeclahay in markii ay samaystaan waa midkan flag bullish flag button. Flagan markuu sameeyo aadan u jeclahay. Bullish flag falling wedge kana aadan u jeclahay. Falling wedge midkan markaan arko nashqadan caada u bartay. Labadan nashqadood aada u bartay. Markay sameeyaanba waa dareemayaa meeshan inay buy ka soo socdo. Because ani sell ma sameeyey only buy waaye waxayga. Marka buyga aan fiirsadaa. Marka buyga waxa waaye labadan qaab aan ugu jeclahay. Okay. Qaabyo kale xataa way jiraan kan camal bullish triple buttons. Mid kale waxaa jiro bullish double button kan xataa waa fiican yahay. W-ga markuu samaysto uu jabiyo maxaa la dhahaa resistantkii markuu jabiyo aydan xataa buy waaye. Waxaa ka helaysaa insha allah. Waxaa ka helaysaa Google-ka ka helaysaa nashqadaha kala duwan. Okay. By the way ani waxaan ka soo bartay macalinkayga mentorkayga Axmed Busuriyaan ka soo bartay. Laakiin waxaa loo baahan yahay in mar walbo la raadiyo more la sii barto oo barashada meel ma istaagayso. Okay. Tan waxa waaye resistant iyo support. Resistant iyo support. Resistant iyo support. Soma dhaqaaq uu sameeyey chartiga dhaqaaq price actionka dhaqaaq uu sameeyey waa la soo celiyey. Supportiga lagu soo celiyey mar kale dhaqaaq sameeyey waa la soo celiyey. Supportiga lagu soo celiyey dhaqaaquu sameeyey waa la soo celiyey. tan macnaheedu waxa waaye uptrade haddaa sida hadda la sheegay. Journalkii haddaayan tusayna waa kana resistant iyo support waa meesha sagxadda u oo bahalkan hayso. Resistantkana waa meesha saqfiga u oo laga yaabo in laga soo celiyo coinka in laga soo celiyo. Hadduu ka dhex baxana potential weyn aa jiro inuu dhaqaaqo oo dhaqaaq weyn sameeyo.
Okay. Coin analyze. Kaas waa chartigii. Coin analyze. Een, degsiga coinada waa in analyze aa ku samaysid. Iska gal maaha. See u fahmaysaa coinyadan in coinyadan ay ahayn coinyo albaabada loo xiraayo oo saacad ama 2 saac maxaa la dhahaa oo lagu kala dhaqaaqayo. Waxaa u fahmaysaa coinka markii bootiyaa jira had dartaan oo asxaabta qolalka canjeela team haddaa u baahan tihiin qolka canjeela team uu ku jiraa. By the way, qolka canjeela team qofkii rabo ani twitterka ha igaga soo hadal anaa usoo diray linkiga. Twitterka aad linkiga anaa kuu soo diray. Qolka canjeela team haddaa rabtid inaa aad. Mint waxay u dhigmataa in mar kale la print gareeyo maxaa la dhahaa kooniyo. Marka mintigan off hadduu yahay okay. Mintigan laakiin on hadduu yahay macnaheedu waxa waaye meesha ka kac waaye. Iyadoo 1 milyan taalo kii developerkii wuxuu sameynaa 2 milyan kale uu sameynaa bahashi saasay u dhacaysaa. Freezing off asagan inuu ahaado halka freeze inuu off yahay oo aan on ahayn. Liquidity poolkana in la gubay 100% in la gubay ayadana in aad ka aragtid. Holders dadka haysto top 10ka inay aan ka badnaanin waxay haystaan kooniyada 10 ilaa 15. Qaar waxaa jiro 20 xataa haysto laakiin aan dadka ku daadinaynin laakiin aaday u yartahay. Marka waxaa fiican mar walba inaad aragtid top holderka inay ka yar yihiin labada number ayna ka badnaanin. Volumekiisa inuu fiican yahay, liquiditygiisa inuu fiican yahay. Waxa waa casharkii hore ka horeeyay iyo market capka waxaasoo dhan inaad la socotid. By the way, market capka markuu yahay 1 milyan ha isdhihin wax badanaa kaa tegi. No, chartiga fiiri support waxaas maxaa la dhahaa trade linekaada iyo chartiga fiiri nashqadaad samayso laga yaabo meeshaas inuu 2 milyan ahdo meeshaasna 1x aad ku arki kartaa. Okay, bootyadan aadayna bootyo tusaale ahaan waxaan fiirinayna tusaale. Coinkan xalay markaan videogan diyaarinayay coinkan xalay Nurmi waa la soo saaray. Coinka markaan fiiriyo fakti koowaad ma laha social, ma lahan telegram, ma lahan maxaa la dhahaa Twitter, ma lahan website. Number 1 flag oo aad coinka ka xararaysid waxaa ka mid ah coinka inuu social lahayn. Coinka social ma lahan. Haye coinka social ma lahan laakiin dhaqaaq u sameynaya. Dhaqaaq qurux badan u sameynaya. Wuu socdaa wuxuu marayaa 200 212,000 oo market capka maraya. Volumekiina waxaa ku jiro 1.7 milyan. Marka inta top holderkii inta walletkan 83.24 haddaad u jeedaan waxaan fiiriyey walletkan iyaa leh. Markaan fiiriyey waxaa ii soo baxday in Radium Authority leedahay waa koonankii loogu talagalay in la gubo. Marka saan markaa aragtid Radium coinkan Radium haysto inta ugu badan laakiin maxaa la dhahaa meesha dhibaatada ka taagan maxaa waaye? Dhibaatada meesha ka taagan waxaa waaye kan waa mintigan on waaye. Marka Radium wuxuu u diray 83 ilaa 100 meelahaas u diray in liquidity pool u noqdo laakiin maxaa la dhahaa 200 kale percentaajana wuu haystaa oo uu soo deyn karaa ugu soo deyn karaa suuqa oo asaga maxaa la dhahaa iska iibin karaa inuu minti ku sameeyo. Taasaa on ah. Marka taas baa dhibaatada keenayso. Markaa aragtid wixii dhan waxaa u malaynaysaa wax oo okay iska ah oo fiican laakiin maya saas maaha. Websitekan
waxaa la dhahaa rock check aa la dhahaa. Waxaan iisoo dhigayaa tv-ga hoostiisa. linkigaa soo qaaday. linkigii markaan soo qaaday intaan dhigay waxaa iisoo baxday wuxuu dhahay baalkan waa khatar waa danger. Mint authority still unable. Wujida meeshaan ku qoran mint authority still unable. Waa big flag. Flagii koowaad waxaa waaye social ma lahan. Flagii labaad waxaa waaye mint authority still unable. Off ma waa on. Marka macnaheedu waxaa waaye ninkan developerkan wuxuu samayn karaa more coins oo suuqa ku soo daadin karaa. Markaas albaabada loo xiraya. Suuqa ku yaala 2 jibbaar 3 jibbaar hadduu ku soo daadiyo oo ku iibiyo waxaa waaye albaabada saasaa bam albaabada loo xiraya. Okay, waa kana anigoo baarayo baaritaanka ku jiro aba la soo daadiyey bitcoin-kii. market capkii euro noqday. Ujeediin hadda ay 200 ku jirta. badanaa suuqyadan markii 200 mise 300 kun ay gaarto ee waxa waaye ii sheeg mintiga ay ku soo daadiyeen kooniyo. Markaas waxaa arkaysaa bahashii adigoo halkii sool ay gelisay bo ever to ever ah. Marka sidii looga badbaado waxyaalaha aan sameynay aa ka mid ah in wallet bahalkan inaad isticmaashid rock check inaad isticmaashid hadduu kuu soo qoro mint authority still unable macnaheedu waxa waaye bahalkani anytime albaabada loo xira anytime wallahi marmar xataa milyan ha gaaro anytime albaabada loo xiraya. Marka aday kugu xiran tahay haddaa riskiga qaadanaysid laakiin boqolkiiba boqol any second time albaabada hal mar la damin karaa. Markii danger haddiiba aragtid bahalkaas waxaa waaye haddaa qaadatid adiga mas-uulka. Laba coin aan waxaan ku fiiriyey sol scan aan ku fiiriyey. Sol scanna waxa waaye asagana waxaan iisoo dhigayaa linkigiisa meesha. Sol scan waa bot aad ku fiirin kartid. Waqtiga aad ugu batay raali ahaada laakiin casharka muhiim waaye. laba coin aan fiiriyey. Marka Zack Morris coinkan in mudduu joogay yaalay maxaa la dhahaa lacag badan loo sameeyey asagaan fiiriyey. Mintiga waa off, freezing waa off, LP liquidity poolkii waa boqolkiiba boqol waa la gubay. Agekiisa waa 1 week. Market capkiisa waxa waaye 81 milyan. Waxaan dhan muhiim ah. Muhiimadda kan waa saddexdan. Kan inuu guban yahay, kan xiran yahay, sax? Kabacdi inta ninkan meesha keliya oo khatarta ku jirta waxa waaye iDrops dadka hadhooti waqti badan haysanaya bahalkan waxay helayaan mar walba iDrop markii la bixiyaba lagu soo daadiyo la bixiyaba lagu soo daadiyo. Marka iDropka waa 84 iDrop. Holderka top 10ka wuxuu haystaa 27 u haystaa. I don't know wuxuu u ilduufay botka because botka mar walba 27 top 10ka okay. Top 10ka dhammaantooda waxay haystaan 27 inta kalena waxaa waaye retailka haysto. Midkaana fiiriya cat kung fu aa la dhahaa. cat kung fu meeshaan inta calaamadda ma laha. Inta calaamadda waxay iisoo saaray developer has mint authority. Mint on waa flag. Freezing waa okay. LP wuu gubay. Ageka waa 36 minute. Waa markaas uu soo baxay aan qabtay aan fiirinayay analyze ku sameynayay. Holderka 317 top 10kana 2% ay haystaan 2% top 10ka only 2% ay haystaan. Marka big flagga maxaa waaye? Waxa waaye big flagga mint on. By the way coinkan ma aqaan meeshan inuu igu jiray in kale
laakiin coinkan asaga naftigiisa albaabada loo xiray xalay maraan saaki ma fiirinayay aan ku noqday cut fu bum albaabada loo xiray waa flag waxaa u malaynayaa ma ku qaadanin saax xataa kuma qaadanin market capka markuu gaaray 300 albaabada loo xiray 213 kun waa sama 300 albaabada loo xiray marka asxaabta raali ahaada videoga wuu dheeraaday saana ma rabin inuu u dheeraado laakiin waxaan diidanahay in inaan noqonno dowli fiis loo dhigayo oo maxaa la dhahaa maalin walba horta lagu dhigo we need to be fox canjeeladeena si tartiib u dibano we need to be fox ya dabaco maa la dhahaa soomaalida dabacada sheekooyin badan maxaa la dhahaa ee ka sheekeeyeen marka in ay tahay smart inay tahay shaxdeedu ay badan tahay tigtiikeedu u badan yahay marka ma rabno foolish rat iyo creative fox or foolish rat mid kala dooro adi marka waxaan rabnaa inaan fox noqono marka asxaabta waxaa u malaynayaa videoga inuu intuu ku dhamaaday angelo team love you guys videoga waxay ku qaatay dhowr saacadood inaan sameeyo marka waxaan jeclaan lahaa inaad ka faa'iidaysatiin websiteki aan ii sheegay oo lagu baaraye bahalka inuu khatar yahay in kalena waan iisoo dhigayaa midkii soliskan asagana waan iisoo dhigayaa insha allah waxaan rajeynayaa silsiladan weli way soo socotaa silsilad qurux badan inay noqoto oo laga faa'iidaysto only keliya noo duceeya inaad tradekiina uu fiicnaado lacagna suuqana ka sameyno lacag asxaabta love you wixii dhan aan iisoo sheegay professional trader oo nagu bilaabay xaliimo iyo faarax oo professional ah aan noqono waxaanu ku soo xirnay inaan fox noqono dabaco inaan noqono anjeeladaynana si xirfad leh oo qurux badan inaan maxaa la dhahaa suuqan uga shaqaysano no more dowli